السلام عليكم كسو دوادا كلية ستار كولج وهانا هاي ماملكا جود كلية ستار مقاعيبو مصطفى سعد كلية waxay bixisaa qaybaha waxbarashada kala duwan sida ingiriisiga carabiga amxaariga xisaabta iyo kombiyuutarka maanta halkan waxaanu ku duubaynaa ama aynu ka baraynaa qaybta online-ka maanta halkan waxaanu ku duubaynaa cashirkeennii koowaad ee kombiyuutarka cashirkii hore waxaynu kusoo qaadanay hordhaca kombiyuutarka iyo waxyaaba lamida maanta cashirkeenu wuxuu ku saabsan yahay 40 shay waxaanu eegaynaa my computer iyo this pc saddexdaa shay haddaad maqasho waa isku mid saynu u ogaano halkan waxaanu ka raadinaynaa computer saad u jeedaan waa kan haddii aad halkan ka weydo waxaad tegi kartaa halkan ay ku qoran tahay type here to search kadib waxaad ku qori kartaa saddexdii magac midkood inagu waxaan ku qoraynaa this pc kabacdi markuu ku soo baxo ayaad ku dhufan kartaa waa furmaya saad kaga xidho halkan ayaad tagaysaa okay kaasi waa marka aad ka weydo halkan sidee marka halkan uu ku yaalo aad u furaysaa mooska dulkeen kabacdina mooska qaybta bidixda ku dhufo 2 jeer ama hal mar kabacdi waxaa kuu furmay computer this pc oo ah computer muhiimadiisu maxay tahay computer waxaanu tusayaa khaanadaha computerku leeyahay saddex khaanadood baa imika inoo yaala c e iyo f khaanadani waa khaanadaha computerku leeyahay ee aad xogta ku ridin karto waxaa laga yaabaa computerkaagu inuu ka khaanada yar yahay ama ka khaanada badan yahay ama khaanadahan uunu lahayn ee uu leeyahay oo keliya c dhib ma laha wax dhiba ma laha waynu qaybinaynaa innaga ayaa qaybin doona laakiin waxaan kaaga digayaa inaad qaybta c-da gasho ood xog ku rido ama aad wax ka saarto taasaan kaaga digaya qaybta c-da waxaa ku jira windowskii ugu muhiimsanaa ee loo yaqaanay operating system ama windows waa waxa computerku ku shaqeeyay sida awgeed waxna ha ku ridin waxna ha ka saar soo kala meesha computerka uu ka gala virusku waxaasoo dhan casharada soo socda ayaan ku ogaan doonaa laakiin hadda waxaad ogaataa keliya this pc muhiimadiisu waxa weeye in aynu ka helno ama aynu eegno khaanadaha computerkeenu leeyahay halkan haddaad eegto waxaad arkaysaa meesha aad dul taagan tahay oo ah this pc waxaad tegi kartaa khaanadaha kale ee documentiga downloadska musica khaanadahaas oo dhan okay waxaan kusoo noqonnay this pc si aan iskaga xidhno close baan ku dhufanayna habka labaad ee u furi karto computerka waxa weeye inaad dul istaagto ood right click tiraahdo kabacdina open aad tiraahdo habkaana waad ku furi kartaa kaas waa computer mar walbana sumadiisu waa nooc ah waa computerka iyo keyboardka isku dhigaysa casharka qaybta labaad aynu ku dhiganaynaa waa maxay waa my document iyo document isna wuxuu dul saaran yahay ama laga helaa desktopka aanu raadino halkan ayuu yaalaa aanu raadino document waa kan waxaa loo yaqaanaa document isna sidaad u furto 2 jeer dhanka bidix mooska ku dhufo waa furmaya maxaa ku jira waxaa ku jira xogta aad adigu ku kaysatay computerka qayb ka mid ah oo meesha lagu rito xogta waa khaanad ka mid ah khaanadaha c-da sida ogeed document sida magac ka muuqato waa xogta ayaa la gashadaa saad iskaga xidho close haddii aad garan weydo shayga aad u taagantahay waxa uu yahay halkaa title-kiisa ka eeg halkaa ama halkaas ay badan lagu soo qoraa innaga document halkaas ay noogu qorata habka labaad ee ku furi karaa waxa weeye inaan isaga dul istaago mooska dhanka midig aan ku dhufto right click yiraahdo kabacdina open labada habba waad ku furi kartaa shayga saddexaad ee baranaynaa waa recycle bin
recycle bin isagana halkan ka raadi muxuu u eegyahay haantii qashinka ayaa u eegyahay waa wax kasta oo la delete gareyno halka ay galaan wax kasta oo la naco oo la delete gareeyo recycle bin ay galaan isaga loo furaa haddii aad taqaano sida kan loo furo oo kan loo furo kana waa taqaanaa sidoo kale mid kasta ama software kasta oo computerka ku jira waxaa taqaanaa sida loo furo ee loo xiro waayo waa isku mid right click baad oran kartaa kabacdi open waxyaabaha halkan ku jira waa waxyaabihii la nacay oo waxyaabihii aan delete gareeyay ee iska saar waa intaas oo shay saad iskaga xidho close shayga la delete gareeyay see loo soo celiyaa ama sidee halkan looga sii saaraa casharada dambe ayaan ku arki doonaa waxaad ila aragtay ood ila baratay 3 shay computer oo kan ah faa'iidadiisu waa maxay waa inaad aragto khaanadaha computerku leeyahay document oo kan ah faa'iidadiisu waa inaad xogta dhigan karto ood kala soo bixi karto recycle bin waa inaad waxyaabaha aad masaxday hadhowtole aad soo celin karto waa meesha wax kasta oo la nacaa ay galaan shayga afraad aan dhiganaynaa waa star menu waa meeshan waa halkan staff ujeedo magacii baa soo baxay star menu ku dhufo waxaa soo baxaya star menu waa meesha computerka aan wax kasta oo u baahanahay kala soo baxayno waa meesha computerka aynu ka bakhtiyayno waa meesha aan waxyaabo badan ka qaban doono oo arki doono magaceegu waa star button boxkan soo baxayna waxaa loo yaqaanaa star menu waxa recycle bin star menu waa meesha muhiimadiisu ay tahay inaad wax kasta kala soo baxdo computerka ka bakhtiyso intaynaan bakhtiin qaybta noogu xigta waa afarta hab ee lagu soo kicin karo star menu 4 steps to open star menu waa afarta habka koowaad waynu aragnay mouse-ka la isticmaalaya dhankiisa bidixda starka dul tagaysaa star button-ka dul tagaysaa kabacdina mouse-ka dhanka bidix ayaad ku dhufanaysaa kaas waa habka koowaad saddexda habee kale waxaan isticmaalaynaa keyboardka oo shaqo kasta oo aynu ku qabanno mouse-ka waxaan isku dayaynaa isku dayaynaa in aynu keyboardkana ku xalin waxaan taabanaynaa windows key keyboardka xarafka windows key ayaan taabanaynaa keyboardka ku yaala windows key waa xarafka keyboardka ku yaala ee u eg windowska ama star waa kaynu hore soo aragnay kaa taabo waa soo baxay si aan iskaga xidhno isla isaga ayaan ku celinaynaa habkaas waa habkii labaad habka saddexaad waxaan qabanaynaa oon isku taabanaynaa control escape balaas haddaad aragto waa laba shay oo la isku qabanayo control hay kabacdi marka dambena waxaad taabataa escape control baan hayaa escape-na waan taabtay wuu soo baxay waan iska sii daynaya si aan uga noqdo ama windows-kii taabo ama escape taabo keyboardkaaga haddaan ku celiyo control qabo escape-na taabo waa soo baxay si aad uga noqoto escape habka afraad waxaan isticmaalaynaa keyboardka taabka loo yaqaano keyboardka ereyga loo yaqaano tab waxaan tab u isticmaalaynaa si aan u dooranay star buttonka kabacdina aan enter u siino tab maxay noo qabanaysaa tab waxay noo fududaynaysaa ama ay noo ogolaanaysaa inaan computerka dhex soconno inaan kusoo soconno inagoo isticmaalaynaa keyboardka يعني صدحdan hab ee ugu dambeeyay mouse-ka ha isticmaalin fadlan iska daa keyboardka igala soco oo keyboardka isticmaal si aan star button ula soo baxo ama star menu aan ula soo baxo anoo isticmaalaya keyboardka taabo halkay taagantahay halkaasaan meel u taaganahay haddaan taab ku celiyo halkay taagantahay koonahan taaganahay haddaan ku celiyo halkaasaan taaganahay haddaan ku celiyo ma garanayo meel aan taaganahay waxaad arkaysaa inaan dhex socdo taskbarka
kabacdi markaan taagannahay star ayaan waxaan taabanaynaa Windowska waa soo baxa afarta hab ee lagu soo kicinayo taskbarka halkaa waxaa noogu dhamaaday cashirkeenii koowaad qaybtiisii koowaad